Son. السلام عليكم. عليكم السلام أبو بكر. أنا صاحبك متان. صاحبك متان وسلامي أصحابتنا وسلامي ميلا جوكتنبا رمضان مبارك سومالي وين. waxaan horta marka hore ku bilaabayaa inaan u mahadceliyo DJ Suber. What a platform. What an amazing achievement in codkaagu within week gudihiis uu gaaro over 1 million people. waa inaan ka fakarnaa runtii sidii aan opportunity-gan loo neutralize garayn lahaa ma aragtay. وأبا كاجم هاد لكن عيد يقول بس هذاك عيد. No, you have to keep going brother. You can change. Somali لما بدل كرتا حتى سان كودت إن شاء الله. أذان كاجم هاد عليا إن رمضان مبارك نصاحب وحربي ضدك بالشوين تهرتا إن ويكول يقانا مالك جيس كستاج كان عاوف فرصتنا حقا وي وحربي وطينا كبلو دنك awareness كا كوفيد 19 يضدك الصومالي دين يقوليه دي شوكان وضدك والد كان عمل إلا على نوع. Absolutely. marka hore horta waxaan salaamayaa asxaabtii igu horeysay ma sha Allah koofiyada kala duwan wata Ilhaan Umar ugu horeyso walaashay Jawaahir oo ahayd qaadiid halkan markay joogtana tagaariyaasha ugu waaweyn ahayd East London Muqdisho markaan tagana mar walba garab naga garab taagan walaalkay sportska bilan ma sha Allah 19 waa masiibo weyn oo adduunka soo food saartay waxaan oran karaa talooyinka dhaqaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka iyo dawladda ha loo hoggaansamo qof walba mas'uuliyad shakhsiyan ha iska saaro inuusan naftiisana protect gareeyo asagana uusan noqon carrier dadka u gudbiya oo uu gacmihiisa dhaqdo oo maskigiisa xirto oo uu iska ilaaliyo meelaha khatarta lagu sheegay runtii haddii la fiiriyo awoodeenna Somali macnaha national health service keena iyo sida uu yahay waliba waxaan ugu sii waajibaysa inaan taxadar extra ah adduunku intuu taxadaraya laba laabkeed inaan sii taxadarno waana Ramadan tobanka u dambeysay lagu jira ana ka ducaysano insha Allah in Ilaahay cudurkaas naga moojiyo aamin waxaan su'aalaha aan soo diyaarsaday saaxiibkaan soo diyaarsaday ta koobaad why shaqadan qaadka inaad mamnuucdid why shaqadan ina qaadki ka soo horjeesatay why aad maamada laamiga ku iibinaysa qaadka ama de koliyada shaqa ka xidhay sida indhaha qofkii negative ku arko wato why afraha u gashay horta why qaadid yani qaadku waa wax jira ama dib waxa la haado laakiin why me waa su'aal fiican way anigu waxaan aaminsanahay qaadku subax saan u joogay inta ku soo fakaray kuma dagaaleen qaadku asaga dagaalku ugu bilaabay ana soo cunay anu 7 years of my life qaatay aniga xanuunkiisii dareemay aniga ku sigtay inuu qoyskaygu ku dumo marka ilaahay xamdiga hadii ilaahay iga madoobeeyay waxa istusay niyow ma noloshaada iska raacataa alxamdulillah inta dhahda iska baxda mugoocidi ku jirta iyada u taalaa miyaa dhahda mise وحن بات كذا حتى واحد يقول صدق على واجس ما كان قبيضة لكن unfortunately قبيضة ما أقال مرك أولوه وحكم بلامي وشاب أنا عن صومري وأن أجد جيو ويلك إركا يصوص على الكاع عدنا إنه أذر بليز قد كان أنا حتى كهر كل عاي سكتشر قديد كلام أنت هس أرنت هو يوينك و very serious question yes ويجران هو يوين كنول yes ويجران هو يوين أغون كرسدا كو سكولات كبحية لكن waxaa jira hooyooyin kale oo aanan arkin oo ilmadu ka dareerayso waxaan oran karaa halka hooyo oo qaadka gadaahi waxay qadisaa oo biilkeeda ka soo qaadataa 10 hooyo kale oo aan qaad gadin laakiin ninkoodu qaadka cuno ninkaasaa soo qaada hooyadaana biilka loo keenaa hooyadana way survive garoobaysaa laakiin 10 hooyo oo kale ayaa victim ah marka mar walba haddii la isbarbar dhigo inta hooyo faa'iideysa iyo inta hooyo dhibaatadu gaarayso waxa badan inta dhibaatadu gaarayso taasaana mudan in loo doodo oo laga hadlo waan ku qancay haddii hal hooyo ay qadayso 10 hooyaa badbaadaysa yes 10ka hooyo markaa badbaadaysa ma waxay ma dhaqaale ahaan bay badbaadayaan ma caafimaad ahaan bay badbaadinaysaa ninkeedii ma ilmihii bay caafimaada ma isagii bay caafimaadkiisa ma iyadiiba
waa tobankaas hooyo oo ninkoodu qaadka cuno waxaa khatar ku jira carruurtoodii oo biila waxaa ku jira ninkeeda caafimaadkiisii waxaa ku jirta iyada laftigeeda hooyada laftigeeda oo domestic violencega hadda aan ka hadlaynay ay ku imaan karto iyo reerkii inuu ku dumo waxaa kaloo oo mudan kelmadda caanka ah oo loo bixiyey waa in la eegaa hooyada laftigeeda qaadka gadaysa waa inaan eegnaa waa maxay sababta keentay inay kabarka soo fariisto hooyo Soomaaliyeed ma la oran karaaba hooyadanba waxaa kabarka keenay because ninkeedii baa qaal cuna marka solutionku aan raadinaynahay ma noqon karo inaan dhibaatada lafteedii dhahno war wixii dhibaatada keena aan ku daaweyno hooyadu ha gaddaaya because dhibkuba asalkiisii qaadka ayuu ka yimid marka dhinac walba haddii loo fiiriyo waxaa roon in xalka loo raadiyo hooyooyinkaas marka xaq waxay u leeyihiin inay carruurtooda korsadaan waana midda aan hadda aan dhiirigelinayna inay qudaarta gadaan inay dharka baatiga gadaan inay sambuuska iyo bajiyaha iyo kackaca gadaan another alternative weliba lagu taageero oo lagu dhiirigeliyo baan mushkaraynayna insha allah dhanka dhaqaalaha maalin tole posta soo dhigtay Facebook anigu subaranta aad aan u taageero waxaa tustay waxaan radaa swag to bit basuushkeedan black and white yani caddayn caadiya yani inta malaayiin dhul Soomaaliyeed ka baxda iyo aanan wax ku bedelin intaasaan rabay inaad ka daba geysid dadka horta unfortunately I don't have boogie qaadid hadda ima hor yaalo laakiin at top of my head waxaa la yiraahdaa koonfurta kaliya oo aysan weliba ku jirin Kismaayo iyo inta Kenya u dhow oo baabuurtu keento qaadka diyaaradaha kaliya ka hadlaya oo Kenya ka yimaada waxaa lagu qiyaasaa 780 milyan sanadkii now haddaad fiirisid 780 million pound waxay ka badan tahay miisaaniyadda dawladda federaalka Somali government annual budget waxaa ka badan inta aan qaad ku gadano marka diyaaradda hadda bakro saaxiib waa intii diyaarad u baxda waa diyaaradaha kaliya waa another statistics in Somaliland qaadka Ethiopia ka soo gala waa another statistics qaadka ka soo gala Jubaland iyo Soonaas xadka Kenya u dhow dhan mid baa badda ka soo gala waa nooc kale laakiin waxaan ka hadlayaa diyaaradaha yimaada magaalooyinka Muqdisho Gaalkacyo Qardho Boosaaso Badhan Buuhoole Cadaado Dhuusamareeb so many cities flights direct from Nairobi ka soo duula subax walba marka amountiga ay keenaan marka lagu dhufto 450 oo jawaanka qiimihiisa waa over 780 million dollars imagine adigu DJ Zubair iyo daawadayaasha hadda wax weydiinaya bal imagine lacagtaas inta warshadood aan sanad walba ku dhisan karno sida saxda loo isticmaalo waxyaalaha la yaabka waxa kamid ah hadda coronavirus xilligan uu jiro inkastoo adduunyadii oo dhanba ka cabanaysa dhaqaale xumo waxyaalaha ay ka cabanayso ay u dhahaysa maxkamad ma tegi karno dhaqaale xumo kamid ah dhaqaale xumidaas soo food saartay waxa kamid ah lacagtii dollarka oo cadaanka oo cashka oo maalin walba Soomaaliya ka qaadan jirtay marka waa dhaqaaliyan wuxuu fariisinayaa dhaqaalaha kaliya ma muruqi dhalinyarada shaqayn lahaa productive ka noqon lahaa wuxuu saameynayaa maskaxdii fikri lahayd waa qaylaysa marka in every aspect dhinac walba oo laga fiiriyo qaadka waa in xal loo helaa way ta aad baan kaaga mahad celiyay qaadka substance ama maxaa ku jira addicted noqonay hadda sigaarka kale waa nicotine-ka maxaa ku jira qaadkan horta addicted ka dhigay rag iyo dumar bada labada maado oo qaadka ku jira waxa la yiraahdaa caffeine iyo cathinone waana addictive waxyaalaha ay ku fiican yihiin waxa weeye qaadka hadduu baarixi noqdo Soomaalidu waxay dhalaan qaadka hadduu maalin jiro kishalay oo kale war waa baarixi waxa lagu leeyahay caffeine life long keeda baa wax yar oo gaaban ah that's why gaariga qaadka wada uu ordo that's why qaadka diyaarad loo saaro that's why wax walba loo dadajinayo waa caffeine-kaas inuusan ka bixin caleenta gudaheeda marka waxa addictive-ka ah waa kaas waana waxyaalaha uu scientifically anigu dhakhtar ma ahay laakiin intaan akhriyay
waxyaalaha uu keeno waxaa ka mid ah liver disease buu keenaa afka qofka kansar uga dhaco paranoia iyo psychosis iyo qofka self esteemkiisii iyo nadaafadiisii iyo wixii oo dhan baaba'ah oo asagii isu qaato and I'm talking about myself anigaa soo maray qofku hadduu qaadku la dego dad waxaa jira medium users oo qaadka once a week ku baashaala oo controla laakiin real heavy usersku qaadku wuxuu saameynayaa caafimaadkooda nadaafadooda self esteem confidencego qofka kalsoonidu hadday ka dhuntana waa finish waa done waan kaa qaatay taasna iyo situationka dhulkii hooyo maanta Djibouti bay iga soo bilow soo soco Hargeysa Garowe xamar Kismaayo list sheediyahoo dhan ba ama listkoo dhan situation xagu maray wayna karano qaadku wala gubaya maanta ma waxa loo gubaya corona virus darteed mise dhan political ba loo gubaya hota qaadka unfortunately horta wixii lagu gubaya waa dhamaadeen Somaliland way fasaxday Puntland way fasaxday koonfurti iyo diyaaradihii baa hadda xiran waxa loo gubaya waxay ahayd coronavirus laakiin anigu waxaan aaminsanahay qaadka laftigiisa coronavirus ah يعني Soomaalidu waxay qaadka u gubaysay bahalkan yuusan cudur noo keenin naga guba laakiin aqliyan asaga laftigiisa cudur ah because katinki ka tanan waxa ka daran pesticide-ka lagu buufiyo DDT-da magicii waxa lagu buufiyo pesticide baa la waa sun la dagaalanta ayaxa iyo cayayaanka iyo inay fuulaan qaadka Soomaali arag mar walba inuu shine iyo dhalaalayo sidii wax la luujitay waxa ku xiranta meesha lagu cunayo go ahead marka pesticide-kaas lagu buufinay iyo asagiyo asalkiisi katin iyo katanona anagu fikriyan waxaan aaminsanahay hadday Soomaali qaad u gubaysay coronavirus uusan soo gelin qaadka laftigiisa ayaa khatarta coronavirus wata because hadda intii cudurkan socday inta qof oo u dhimatay hadii la fiiriyo iyo hadii la fiiriyo intii ka horeysan cudurkan iman inta qof ay qaad u dhimatay awgiis ama beerku u baaba'ay ama silic kale u dhintay waxa badan baa la oran karaa inta qaad ku dhimatay marka sidiisuba mudan yahayba in la gubo waan ka qaatay iyo su'aashii ugu dambeysay saaxiib waqtigaaga marba inaan sii qaato suxuurtii wala wala cararaya maxaad kula talin lahayd hadda bulshada kugu jirta hadda ay ku daawanaysa from top to bottom almost aan lahaynaa yani dadka kala duwan ee ku daawanaya fariintaba uga tagi lahayd saaxiib waxaan oran lahaa ingiriisku waxay dhahaan be the change you want subeer hadda waxa uu samaynayo bulsho rabaa inuu wax ka bedelo anigu waxa aan sameeyay bulsho wax aan dhibsaday oo anigu aan soo maray baan go'aansadnay inaan wax ka bedelo adiga i daawanaya Soomaaliya waa wada challenge pick up your challenge Soomaaliya waa wada challenge pick up your challenge dhan caqabadaha jira badan marka challenge-yadaas mid ku dhig oo ku mintid oo isku day isbedelka aad rabtid inuu dalkaagu noqdo inaad adigu doorkaaga ka qaadatid meel walba aad joogtid iyo wax walba ay tahay hal tusaalaan in siinaya wiil yar oo Soomaaliya baa wuxuu arkay cudurka coronavirus oo la leeyahay oxygen ma haysano maskigi waa naga dhamaaday waad aragteen hadda gabdhihii baa samaynaya wiil yar oo Soomaaliya sameeyay oxygen-ta lagu neefsanayay marka waa real change maker weeye marka qof walba waxaan oran lahaa isu xilsaan cirbadna Allah ka dhigay Soomaaliya inaad wax tartid maanta wow waxaan ku leeyahay saaxiib sharaf bayaad wata caawa inaan xasan ku kulano abukar awali waa ka Instagram-kiisa madaxayga waan ku samaystay caawa sharaf korkaaga Allah ha noqdo ma sha Allah ciid mubaarak ciid mubaarak saaxiib oo dhulkii balantina waan oofinaya burco weyn wala tagaynaa labadeena definitely ani adiga burco I love you brother love you brother take care wow Hasan اسيب هون ها hey ha أنا كاسر أشتري كتبوني ها دوا حاسك يعني تبكي هاش أنا كاسر أشتري كتبوني لجك لمطاق وراقيزة
I love you brother. waxaan leeyahay saaxiibkii armaan texban xaggan yes armaanta maalin kana soo cusubaya waxaan rabay inaan horta aad iyo aad aan u mahad celino martida wow imagine guys 82 83 people or adduunko dhan jooga different category different background ayaa live Instagram kan ka daawateen in less than 20 days ma hadda ilaahay baa iska leh amaantana waxa leh yaga martida asxaabtay walaalahay iyo idinkooda oo habeen kasta nagu xidhan sharaf korkiina ha ahaato matalo meeday listii bilitooda asxaabtay ninkan iskuulka isaga iga fiicna way niga duban keenaya dugsiga isaga iga fiicna laakiin far adaa ka highlights السميات highlights كقول يا متقنة وحنا قراء كفتك عصاي وانك سلام صاحب سلامني هبين ضمبه waxaan soo casumay cabdi xaafid wariyaha maanta la oran karo waa wariyaasha top 5 Soomaalidu ay leedahay dayaxtar nuur I love you brother waan ku arkaa daahir calalkumiya waa mahadsantihiin caawa cabdi xaafid University TV oo ka soo hadli doona somewhere in Scotland ma reer Scotland haday ku jirtaa big shows waxaan kale aan soo casumay ina la yiraahdo Xamdiya Ahmed waa inantii qabsatay social mediaha shalay dor radio tii ku horeysay waxay ka hadlaysaa bully ama bullied qofba suu yaqaan af Soomaaliga iga dabagay dadka Soomaaliga oo ii qoro qofku marka la bully gareeyo maxay ku noqonaysaa af Soomaali inta bali soo qora bully af Soomaali labadeedan dilna ma ahayn dil bully ay qan marka qofku markuu inantaasi waa tii qabsatay ka hadlaysay skin colorka ee lagu cunsuradeeyay Portland bay ka soo hadli doontaa hadduu aad kale waxay tiri amal marka soo galayo dulmi waa mahadsan tahay qaalida dulmi oo skinka inantaas aad iyo aad baan uga mahad celinaya Xamdiye Ahmed waana activist u dooda xuquuqaha Xamdiye Ahmed habeen dambe she's very beautiful and amazing wallahi colorkeeda waxba inay ka bedesho ma dulmi waa mahadsantiin wallahi cunsuriyaad lagu cunsuraday waa run waa la takoray thank you grand takor waa la fahamteen habeen dambe ka hadlaysaa Xamdiye Ahmed ninka hip hopka right now haysta ROX ama ROX oo ka soo hadli doona Swedish heestiisa ugu dambeysayna I don't know يعني waxay gaadhay 2 million of less than a week or two ROX J Oceanal saaxiibka J Oceanal Sekiyare Iskilachi boqol teamkii Toronto dhan oo hogaaminaya J Oceanal iyo last but not least Dr. Barkhat دكتورkaasna uu ka hadlayo wuxuu ku takhasussan yahay oo aan u soo casumay jaamac Uthman xaggan uga mahad celinayo macaanka dhalinyaradeenii teenagerka waxa la yiri macaankii waa ku batay meel kasta aynu joogno isaguna waa specialist buu ku yahay macaanka marka Dr. Barkhat habeen dambe is going to be a lovely amazing anigii mataba waxaan ka hadlaynay every night we top it yani only the best habeen kasta martidii caawa I love you mama Jawahir ugu horeyso aad iyo aad mama kaaga mahad celiyay Ilhaan Umar Suldaan Xasan Abubakar Awaale Bilan superstar Ilhaan Umar wow amazing wariyadahan suxuud baa lagu cararaya anigana hataa wax su'aalo qabtiin oo qof kale ID ugu soo darsanaysiin waa ikana haya soo qoray ugu darsada ogaadana inaa waka higher ina soo qortay hay buru minu soo qortay Hasan ku darsada I love you guys waxaan igaga tagayaa be safe wayno ya habeen dambe eeba haduu ka dhigo ha